kusoo dhawaada dhegeystayaal waxaan rabaa waxaa dhacahaya maanta waxa ugu muhiimsan ayaa la dhihi karaa doorashadii Mareykanka saan horaan mar hore idinla wadaagay Mareykanku nidaamkiisa runtii aadka iyo aadka la yaabka u leh oo aan ahayn sidii markii hore la moodi jiray doorasho maalin ku tartamaan laba ruux ama dhowr ruux oo markaa midka codka ugu badan ka hela shacabka ku guuleysa ma oo waa arin process dheer marta oo qodo dheer oo maaragtay aad runtii uu cakiran markii si loo yiraahdo marka tii ugu dambeysay ugu dhaweyd tii ugu dambeysay ma runtii midii ugu dambeysay tii ku xigtay oo ah inta uu qaaliga maxkamadda sare uu ka dhaaranay madaxweynaha in ay asixiyo baarlamaanku dadkii loo soo doortay inay maaragtay codkooda dhiibtaan madaxweynaha ama qolada kooxda heshay codka ugu badan ayaa maanta dhacaysay waxaad wararka ka maqlaysaan in uu taageerayaashii Donald Trump ay carqaladeeyeen ama isku dayeen inay carqaladeeyaan codayntaasi waxyaalaha kale waxaa idin sheegay la yaab kale runtii Mareykanka nidaamkiisa aan ka baranayno muhiimna aha in la ogaado wax ay dadku isku og yihiin si kasta ha u qorxumaado si kasta ha u qaadaraado si kasta ha ahaadee wax dhaama inuusan jirin waxa dadku isku og yihiin marka maxaa uga jeedaa nidaamka Mareykanka doorashada waxaa soo baxaysa maalin ka dambaysa soo cadaanaysa in uu kali uu yahay waxa lagu kala socdo waxa la isku og yahay wax hore la soo sheegay la soo qeexay soo socday wadada la marahayo jiirta dheer la marahayo inay la shortiga la sameeyay in la soo booday markasto inkastoo ruuxu wadada soo maray inuu macnaha yahay ruuxa ku guuleysay arrintu dhinaciisana marayso marka waxyaalihii kor dhankaada la soo maray midda maanta ugu dambaysa xagga markii loo fiiriyo arrintan codayn dad ay hor istaagi karaan waa tii ugu dambaysay ahayd maanta taana waxay ahayd marka ay baarlamaankii uu isu yimaado weliba khaasatan sanadka guriga duqeyda ayaa waxaa asixinaya duqeyda gurigooda madaxweyne ku-xigeenka waqtiga asaga ah jooga ayaa asixinaya waxaa mudan xusid in la soo saaray fiidiyoyo tusahaya Joe Biden oo la socotaan inuu ahaa madaxweyne ku-xigeenkii Barack Obama oo macnaheedu ay tahay ninkii asixiyay guuleystigii uu ku guuleystay Donald Trump ninkii asixiyay buu ahaa waxaa la soo saaray sawir aha asaga oo wejigiisa ay ka muuqato waa 2016kii weeye asagoo wejigiisa ka muuqato inuusan jeclayn uusan kana helaynin uu jeclaan lahaa inuusan samaynaynin waxa uu samaynayo in Donald Trump uu u saxiixayo oo dabcan ka reeyay Hillary Clinton laakiinse uu sameeyay waxaa asagana markaa ay kaameradu tustay ninka sanadka hogaaminayay Republicanka oo qoslahaya oo aad ugu raaxaysanaya macnaha sida loo arko in uu maaragtay Joe Biden oo asixinayo madaxweyne Donald Trump doorashadiisu ku guuleystay marka sidii oo kale tanna waxa ay ahayd inay dhacdo oo ama ay dhacaysaaba in uu marka madaxweyne ku-xigeenka Donald Trump in uu asixiyo in Joe Biden uu ku guuleystay marka intayna arrintaa dhicin ayay dadkii taageerayaashiisa wararka ku arkaysaan Donald Trump ay baarlamaankii soo galeen oo ay carqaladeeyeen ama isku day inay carqaladeeyeen waxaa marka xusid mudan aad xusid mudan jeclahay inaad maaragtay aan dadka qaarkoodna u turjumo inta aan u turjumi karo ninka hogaamiyaha hadda oo ahaa Republicanka sanadka oo la ogaa markii ugu horeysay inuu Donald Trump ka soo horjeeday bilowgii hore markuu Donald Trump macnaha waxa weeye uu soo sharaxayay aakhirkiisa markuu guuleystay noqday ninka ugu taageersan oo dadka qaarkood ay u arkeen ma ninkanu nin mabda' lahba ma aho Donald Trump ayuu jeebka u galay oo maaragtay sinaba uga hor imaanay ninkii ayaa si aad u kulul uga hor istaagay waxyaalaha uu Donald Trump ku dhaqaaqayo oo yiri madaxweyne waxaan wax soconaysa ma aho sabab taariikh 1800 iyo wax arrimo isku dhacay oo isku hormaad la isku qabtay doorasho oo ay gobollo laba kala kooxood soo direen
aakhirkiina ay maaragtay dhinac u dhacday oo nidaamka la raacay isagoo raacahaya asaga oo yiri sinabo uma ogolaan karno in dimuqraadiyadeena iyo nidaamkeena la carqaladeeyo hadaladiisii waxaa ka mid ahaa waxaan idiin sheegayaa buu yiri nin ka nacab igama jiro buu yiri Joe Biden inaan istaqaano weeyo in badan aan soo wada soconay wadada soo wada maray buu yiri wuxuu ka wadaa sanadkii maadaama ku wada ahaan jireen muddo dheer ay soo wada galeen soo wada wax aan ka nacbay ma jirto buu yiri maanta inuu madaxweyne noqdo laakiinse wax door oo leeyahay ma jirto buu yiri waa shakhsiga madaxweynenimada loo doortay maanta weeyo buu yiri Kamala Harris ku xigeenkiisi weeyo waxaan idiin sheegay buu yiri saddex magaalo oo kala ama saddex gobol intuu sheegay iyo wixii doorashadii halka ka dhacday maxkamadda la aaday ayaa maxkamad ay waxay u qaybsantay buu yiri maxkamaddu xukuntay buu yiri in uu Joe Biden ku guuleystay oo wax khaldamay uusan jirin 3 iyo 4 waxaan ku waafaqsanahay buu yiri oo raacsanahay buu yiri fikradda saddexda qaali dhinaca ay mareen laakiinse waxaan aqbalahayaa buu yiri fikradda afarta qaali macnaheedu waxa weeye markii qaaliyadii ay cod qaadaan intii sheekada la soo hordhigo lagu hordoodo ayaa waxay u kala qaybsameen saddexna waxay tiri waxaanu ku waafaqsanahay waxba khaldamay baan macnaha aqbalaynaa oo dad miis macnaha in Donald Trump ay u janjaa xaqiisi macnaha fikradiisi ay macnaha u fiican tahay afarna waxay dhaheen maya wax khaldamay ma jirto arintu caadi weey marka wuxuu yiri waxaan jeclaan waxaan ku waafaqsanahay bi fikrad ahaan saddexda laakiin se waxaan aqbalahayaa bi afarta macnaheedu waxa weeye dimuqraadiyadda iyo nidaamkii baa hadlay sidoo kale iyaduna wuxuu gobol kale ayaa asagana la yiri secretary-ga ayaa wax khalday oo wax sameeyay oo intaas wax sameeyay waan jeclaan lahaa bi inaan ku raaco oo secretary-ga arrintiisu ay noqoto laakiin ma soconin bi yiri maxkamadda sare qaali maxkamad sare ah ayaa arrinta diiday oo ku qanci waayay waxa kale oo yiri waxa la yiri bu yiri 10,000 oo ruux oo maxaabiis ah ayaa codaysay baa la yiri bu yiri waxaan yiri bu yiri 10 xataa 10,000 baad sheegaysaa 10 hadaad ii keentaan waan ku qanci lahay 10 ii keena hal basa ayaa yaa la keenay bi la keeni waayay wax kale waa la keeni waayay hal ruux mooyeen sidoo kale iyadana dad aan sharci aaminsanayn oo macnaha sharci lahayn oo citizen ahayn oo ilaa wuxuu yiri 50,000 biyuuri oo xaas oo kala ah boqoliyo xaas oo 1,000 oo ruux ayaa iyadana codaysay baa la yiri sidoo kale waxaan yiri 10 ii keena hada 10 ruux oo sharci lahayn oo codaysay aad ii keentaan oo la xaqiijiyay ayadana waa ku qancahayaa ee ii keena hal bas ayaa la ii keenay taa darteed ayuu wuxuu yiri wax noo furan ma jirto maanta oon ka ahayn Joe Biden iyo Kamala Harris in la aqbala mooyeene asagoo waliba toos oo la hadlay madaxweyne ku-xigeenka Pence Donald Trump ayuu ku yiri waan ogahay buu yiri wax aadan sameyn karin in lagu leeyahay samee ma sameyn kartid wax saxda ah baad sameynaysaa oo sameyn kartaa buu yiri waxaadna sameynaysaa buu yiri waliba arrinta xusidda badan ba waxay tahay inuu yiri waxaad sameyn buu yiri waan ogahay buu yiri wiilkaaga iyo wiilka sodoga aad u tahay labaduba waa diyaaradaha ciidanka ayay wadaan buu yiri si ay diyaaradaha ciidanka u wadaan oo hawada ugu jiraan sababta ay iyaga ciidamaha ugu jiraan biyay ay diyaaradaha u kaxayn hayaan ayaan inagu halkan kala isugu nimaadno si nabad ah aan ku doodnaa biyay oo fikradaheedna isdhaafsanaa marka u dambeysana qolada badisa ay dhinacooda martaa bir saadaradeed wax meesha yaala oo dhiman hadda ma jirta biyay oo ka ahayn in madaxweyne Joe Biden oo si sharci ah oo sax ah loo doortay in la asixiyo oo arrintiisu halka ku dhamaato iyo Kamala Harris waxaan kaloo jeclahay codkiisa idin codka runtii aad u awood badan buu ahaa aad u adool dhika ninka la dhaho Lindsey Graham inuu maaragtay asagoo loo soo jeedinayay eedayn aad u fara badan oo inuu jeebka ugu jiro Donald Trump ahayd aad moodid taariikhdu inay u xusayso si kale oo ka muuqatay hadalkani inuu ahaa nin markii asalkiisaba ogaa game siyaasadda inuu ciyaarahayay siyaasadana inta tabartii ah uu ciyaarayo dhinaciisa oo uu goolka u doonayo inuu dhaliyo xagga kooxdiisa laakiin markii goolka laga badiyo uusan inaba yaraatee wax kala uusan u banaanaynin oo aad ugu kala bedelan yihiin markii loo fiiriyo asaga iyo Donald Trump oo moodid inuu yahay arrintiisu ay tahay uun sharci iyo nidaamka inuusan danaynaynin ee uu doonayo inuu asaga guuleyso laakiin Donald Lindsey Graham arrinta uu meeshan shaaca ka qaadaa waxay tahay inuusan ahayn uu isku day ama waxa qaaymo ama waxa siro ama waxa sameeyo inuu goolka kooxdiisa u dhaliyo laakiin aakhirkii markii socon weydo uu goolka dhali waayo
inuusan maaragtay dalka burburdiisa iyo nidaamka jira inuu maaragtay burburo ama uu khilaafaad dhaco oo wax iska horimaad dhaco inuusan sinaba ugu ogolaanaynin oo uu nidaamka aaminsan yahay marka wax yar intaa yara dhegaysa wixii aan ka dhihi kara marka idinka sheegayaa waxaa toos uga hadlahaya ABC News America ayaa maaragtay arrinta soo tabinaya waxaa ka dhacaya guriga Senate-ka Mareykanka. I'm going to go to the Senate floor right now. Lindsey Graham, who has been perhaps the most stalwart supporter of the president in the Senate these last few years, is golfing. Lindsey tana ayuu yidhi oo ah ninka ugu taageera badnaa madaxweynaha dhowrkii sano u dambeysay oo xataa wada ciyaari jireen bir golfiga aad ka wada ciyaarayeen ayaa haddadan ka hadlaya biyuri masraxa Senate-ka. November, taking to the Senate floor and writing himself away from the objections to the certification of the Electoral College. wuxuu ka hadlahayaana arrinta waxa la dhaho maaragtay objection kala dhaho ama dii kale inaynan taageersanayn in codkan loo xaqiijiyo ama loo qiro madaxweyne Joe Biden arrinta ayuu ka jeesanaya oo leeyahay uusan taageersanayn macnaheedu way. But no time soon. Tim and I have a good relationship. I love Tim Scott. 1876, South Carolina. wuxuu yiri waqti badan ma dhimana buu yiri Tim aniga niman saaxiib ayaan nahay buu yiri aad calaaqaad dheer ayaa naga dhaxeeyay buu yiri 1976 1700 iyo 60 iyo waxa adu waqti taariikhda arrin dhacday oo South Carolina ka dhacday. Louisiana and Florida sent two slate of electors. laba gobol Louisiana iyo Florida ayaa waxa mid kastaba soo direen buu yiri laba doorataal dal laba kooxood oo isgarab socota oo mid kastaba ay dhahayso annaga ayaa madaxweynaha dooranayna ayaa la soo diray. They had two governments, by the way. waxayna lahaayeen bil laba gubernatorial ayay lahaayeen bil laba gubernatorial ayay lahaayeen. And we didn't know what to do. wax alla waxaan sameynay marka garan weynay maana garayn waxaan sameynay. Why did South Carolina, Florida, and Louisiana do it? waxaan isdhiibay sababta ay labadan gobol sidan u sameynayaan maxay tahay? To hold the country hostage to end Reconstruction. inay dalkii oo dhan bay u qabsadeen buu yiri afduubeen buu yiri si ay maartay u istaajiyaan dib dhiskii la sameynayay. It worked. way shaqaysay bi arrintaas. The commission was 8-7. commissionkii guddigii la sameeyay arrintaasi ayaa waxay u codeeyeen buu yiri 8-7. It didn't work. Nobody accepted it. The way it ended is when Hayes did a deal with these three states. You give me the electors, I'll kick the Union Army out. mid walba nin waqtigaa joogay ayaa dhil la galay oo yiri siiya codka markaasan ciidanka unionka macnaha markii civil war ku dhacay weeye ciidamadii u dagaalamayay inay ka go'aan qayb sadanka koonfurta iyo ciidamadii kale ee u dagaalno waqooyiga ee u dagaalamaya dalku inuu mid ahaado ayuu marka wuxuu yiri ciidanka maartay unionka aha inuu la midooba ah ayaan ka saaraya meesha macnaha dhil ayuu la galay goboladii. The rest is history. It led to Jim Crow. inta kale waa iska taariikh weeye. If you're looking for historical guidance, this is not the one to pick. haddaad rabto bir wax misaal taariikhi aad u isticmaasho ma aha bir midani midda ugu fiican ee la isticmaalo. If you're looking for a way to convince people there was no fraud, having a commission chosen by Nancy Pelosi, Mitch McConnell, and John Roberts is not going to get you to where you want to go. wuxuu marka hore wuxuu weerarayaa sida ay dimuqraadigu wax u sameeyeen marka wuxuu yiri haddaad rabto dadkii inaad ku qanciso inuusan wax khaldamin oo wax la qaa'imin ma aha buu yiri in xaalad commission ama guddi la saaray ma aha khaasatan guddigaasi oo islaanta baarlamaanka guriga House of Representative-ka ugu sareysa Nancy Pelosi iyo dhowr ruux oo kale oo ismagacaabay oo malanay inay yihiin kuwa dimuqraadiga ah guddi ay soo doorteen kuma ma noqonaysa yiri guddiga kaga qancinaya shacabku inuusan wax khaldamin. It ain't going to work. So it's not going to do any good. It's going to delay, and it gives credibility to a dark chapter of our history. dib bay u ridaysaa bid arrinta taariikhdeenana aadka u madowna
waxay siinaysaa maaragtay waxay siinaysaa buu yiri qadarin ayay siinaysaa macnaheedu waxa weeye inaan wax khaldamaan oo wax la xado oo qad jiro oo nidaamkeena qayb ka mid aha dabcan ayay sii xoojinaysaa macnaheedu weeye That's why I'm not with you. saas weeye buu yiri waxa aanan idinla joogin haddaad tihiin qolada ula hadlay markaa waxaan dimuqraadigan yihiin But I will fight to my death for you. You're able to object. You're not doing anything wrong. Other people have objected. I just think it's a uniquely bad idea. marka cafwan wuxuu la hadlayaa qolada saaxiibadiisii Republicanka ayuu la hadlayaa marka wuxuu yiri sadaraadeed ayaana idinla jirin anigu inaad arrintan ka hor timaadaan oo tiraadaan madaxweynaha Joe Biden si sax ah looma dooranin khaasatan Arizona wuxuu yiri isa sadartay ayaan idinla jirin biir waxaana idin sheegayaa biir waxba kama khaldana biir inaad tiraadaan biir su'aal baan ka qabnaa waad ka qabi kartaan biir waa caadi in su'aal laga qabo laakiin anigu idinlama jiro arrintaas kuma taageersani Yeah, to delay this election. doorashadan baa hortaan biir dib inaad u dhigtaan Trump and I, we've had a hell of a journey. aniga iyo Tambir wada dheer baan isla soo marray biir I hate it being this way. Oh my God, inay sidan arrintu ku dhamaato aad iyo aad ay u nacbahay biir waa nacbahay biir sidan arrintu ku dhamaato I hate it. From my point of view, he's been a consequential president. aniga fikradda hadad weydiisaan biir wuxuu ahaa biir madaxweyne macnaha si ku yimid غير caadi ah But today, first thing you'll see. All I can say is maanta sabiir arrintu macnaha ilaa caadi madaxweyne macquul ah ayuu ahaa haddii aad aniga weydiiso laakiin se maanta biiri waa wixii koowaadaan aragna biir macnaha waxaan u malaynayaa inuu xusahayo isku daygii la isku dayay baarlamaanka in la soo galo dadkii arbushaada sameynaya ama mudaharaadahay count me out. Enough is enough. I've tried to be helpful. But when this Wisconsin Supreme Court ruled for aniga buu yiri iga saara buu man isku dayay buu inaan wax caawiyo inaan idin caawiyo aan isku haadiyo laakiin hadda waan harahayaa arrintan waan ka harayaa macnaha ka horimaadka laga hor imaanayo maartay arrintan la khilaafayo waan ka harayaa buu waqtigayga waa dhamaaday 4-3 marka uu Wisconsin gobolka la dhaho labada qaaliga maxkamaddu ay 4-3 ay ku proof garayaan arrintu inay sax ahayd that they didn't violate the Constitution of Wisconsin. sharciga lama jabinin ay dhaheen oo 4na dhinac martay 3na dhinac martay I agree with the 3, but I accept the 4. saddexda ayaan ku waafaqsanahay buu yiri macnaheedu inuu wax khaldamay laakiin se 4ta ayaan aqbalayaa buu go'aankooda If Al Gore can accept 5-4, he's not president. haddii uu Al Gore waxa taa uu ku dib ugu noqday 20 waxaan malanayaa 2000 maxay ahayd markii George W Bush uu madaxweyne noqday Al Gore iyo asaga ay la tartamayay arrintii maxkamadda intay gaadhay maxkamadda sare ay 4 iyo 5 u qaybsameen oo macnaheedii 4 ay tiri Al Gore ay u codaysay 5na ay u codaysay George W Bush laakiin se Al Gore uu iska aqbalay ayuu leeyahay hadduu Al Gore in uusan madaxweyne noqonin oo macnaha qarka u taagnaa meel ay ku kala qaybsameen qaaliyadii 5 iyo 4 diyaar ayaan u ahay anigu inaan hadaba midan idan aan aqbalo I can accept Wisconsin 4-3. waana Wisconsin qaaliyada u codeeyay u kala qaybsamay 4 iyo 3 waan aqbalayaa Pennsylvania, it went to Pennsylvania iyadana haddaan kala fiirino the Second Circuit. So much for all the judges being in Trump's pocket. maxkamadda sare maxkamadda labaad ayay arrintu gaadhay buu yiri ayadoo oo loo arka buu yiri qaaliyada intooda badan inayba oo la leeyahay macnaha lagu eedeynayo qaaliyada intooda badan inay Donald Trump jeebka ugu jiraan macnaha dad uu asagu uu aboonti garaysay ama asaga taageera ay yihiin lagu tuumay inay yihiin They said, no, you're wrong. way ka diideen buu yiri khaldan tahay bay dhaheen buu arrintii la soo jeediyay ee ahayd in wax la khalday oo doorashada si khalad loo sameeyay way ka soo horjeedsadeen way diideen I accept the Pennsylvania Second Circuit maxkamadda labaad ee Pennsylvania ayaan aqbalay buu marka iyadana that Trump's lawsuit wasn't right. Donald Trump maxkamaddii uu ku soo oogay arrintaasi ee uu rabay inuu doorashada ku asaga uu ku helo uu ku lusgareeyay ayaan taageerayaa inuu macnaha uusan Donald Trump saxsanayn Georgia, they said the Secretary of State took the law in his own hands. waxaa kaloo la soo eedeeyay la soo jeediyay Georgia gobolka Georgia in la yiri secretary-ga ruuxa xogayaha gobolka in uu sharciga jabiyay oo asagu sharci cusub iska samaystayba Changed the election laws unlawfully. A federal judge said no. sharcigii inuu cusub iska samaystay oo sharcigii doorashada uu jabiyay ayaa la yiri qaali maxkamadda qaali federaal ah
ayaa noo yiri oo diiday arrintaas Accept the federal judge, even though I don't agree with it. qaaliga federaalka ah ayaan go'aankiisa qaatay buu inkastoo aan ku waafaqana ku raacsanayn haddana waan aqbalayaa Fraud. They said there's 66,000 people in Georgia under 18 voted. waxaa yiri waxyaala fraud ama corruption ayaa dhacay baa la yiri waxay dhaheen bi 66,000 oo ruux oo aan da'da qaangaadhka ah gaarin ayaa codeeyay bay dhaheen bi How many people believe that? yaa rumaysan I asked, give me 10. waxaan idhi yiri iska joojiye 66,000 iska joojiye 10 ii keena 10 ruux oo aan gaarin da'da lagu codeeyo oo codeeyay haddaad ii keentaan macnaha waan qaadanayaa oo waan ku dagaalamay And had one. hal bas al They said 8,000 felons in prison in Arizona voted. waxay kaloo dhaheen bi 8,000 oo maxaabiis ah oo ku jirta gobolka la meel ku jirta ayaa codeysay baa iyadana la yiri Give me 10. I hadn't gotten one. waxaan idhi yiri ii keena 10 ii keenaan ku iri 8,000 baad leedihiin 10 xab ii keeno kali ah oo cadaynaysa inay codeeyeen hal bas al ii keenay Does that say there's problems in every election? taasi waxay ku cadaynaysaa bi inuu dhibaatooyin iyo wax inuu ka jiro goorasho kasta laakiin macnaheedu ma inuusan aynu doorasho sax u dhicin I don't buy this. Enough's enough. arrintan ma gadanayo ma aqbalahay arrintan waa in la joojiyo waxaan arrintan si wadadeeda We got to end it. waa inay saajin arrintan Vice President Pence, madaxweyne ku-xigeenka Pence si uu la hadlaya marka what they're asking you to do, you won't do because you can't. waxa ay rabaan in aad samayso ma samayn inaad waxa ay rabaan in aad samayso ma aad samaynaysid biri sababtoo ah ma samayn kartid You talk about interesting times. I associate myself with Rand Paul. How many times will you hear that? waxyaala muhiim ah laga hadlaa biro arrimaha waqti macnaha غير caadi ah ayaa laga sheekeeyaa la sheegaa biri wax buu sheegay arrintaas imsa kor ayad maqashaa arrinta ayada The mob has done something nobody else could do. mob macnaha dadkii bulshada samaynayay wax uu soo samayn kara uusan jirin ayay sameeyeen To get me and Rand to agree. Rand ninka waxaan u malaynaya inuu ninka hogaaminaya dimuqraadiga wuxuu yiri aniga iyo Hebel Ran ayaa waxay ku guuleysteen biir inay aniga iyo Ran aanu isku waafaqno oo isku dhinac marno qoladii baarlamaanka soo weerartay Rand is right. If you're a conservative, this is the most offensive concept in the world that a single person could disenfranchise 155 million people. waxaan aqliga gali karin oo khaasatan dadka dhinaca midigta ay jira ugu xun ay la soo jeedin kara waxay tahay yiri hal shakhsi oo kali ah in uu codkooda meel kale la mari karo 150,000 oo ruux The President of the Senate shall, in the presence of the Senate and the House of Representatives, open all certificates and the votes shall then be counted. The person having the greatest number of votes for president shall be president. sharciga ayuu akhriyay marka wuxuu yiri waa inay baarlamaanku isu yimaado loo codeeyo codka ugu badan shakhsiga hela inuu noqdo madaxweynaha markaas Where in there does it say Mike can say I don't like the results? ma dhahaysa sharciga meesha ma jirta biyo ruux inuu Mike Pence buu ka hadlayaa inuu dhihi karo biyo codka codeynta ma jecli oo wax kale aan sameeyay macnaha wuxuu ka hadlayaa hadda khaasatan maadaama uu madaxweyne ku-xigeenka Mike Pence ay tahay hadda inuu ansixiyo dadna ay leeyihiin ha ansixinin xagee sharciga ay ka dhahaysaa biyuri markay aqlabiyadu ay dhahayso Joe Biden ayaa la doortay inuu asagu yiraahdo ma heli kama jeceli arrintaas oo wax kale ayaan sameynaya I want to send them back to the states. I believe there was fraud. inuu dhihi karo biyo dib baan u celinayaa gobolladii iyo dib ugu celinayaa ha u soo hadana ha soo codeeyaan waxaan aaminsanahay in wax khaldamay To the conservatives who believe in the Constitution, now's your chance to stand up and be counted. dadka xagta midigta jira conservative-ka macnaha maxaa la dhahaa asal raac baa ugu habboonaya erayga lagu turjumi karo ee aaminsan biir sharciga waxaan leeyahay biir hadda ayay tahay inaad istaagtaan oo la idin tiriyo macnaha aad muuqataan sharciga inaad difaacdaan Originalism, count me in. haddii dadka asal raac ah biiri aniga ay tiriyo biir It means what it says. waxay dhahaysa ayay leedahay biir taa arrinta hadalkaas ayay tahay So, Mike, Mr. Vice President, just hang in there. They said we can count on Mike. All of us can count on the Vice President. madaxweyne ku-xigeen buu yidhi halkaa ku adkaysan meeshaas buu yidhi kuwa ayaa waxay leeyihiin buu yidhi madaxweyne ku-xigeenka Mark ayaanu macnaha ayaanu isku hadlaynaynaa buu yidhi
annagoo dhan ayaa adiga kugu isku hadlaynayna macnaheedu buu ka wadaa inaad sida sharcigu yahay aad marayso ee sidaad jeceshahay in aadan samaynaynin kuna suurtagelaynin inaad samayso. You're going to do the right thing. You're going to do the constitutional sida waxa saxda ayaad samayn doontaa buu yidhi sharciga sida waafaqsan ayaad samayn doontaa. thing. You got a son who flies F-35s. wiil waxaad leedahay buu yidhi diyaaradahan dagaalka ee 35ka ahaa kaxeeyo daylooda manaha diyaaradaha dagaalka kaxeeya. You got a son-in-law who flies wiil sodog u tahay oo asagana diyaaradaha wada ayaa jira asagana. F-18s. They're out there flying. So banaanka duurka ayay joogaan biyo diyaaradaha iyo hawada marinayaan. we can get it right here. waxay u samaynayaan sidaas buu yidhi inaan inagu sida saxda u shaqayno oo halkan nidaamka iyo sharciga aan raacno. There are people dying, to my good friend from Illinois, to make sure we have a chance to argue among ourselves. dad ayaa dhiman haya buu yidhi misaalka u soo qaatay ninka saaxiibka ee Illinois laga soo doorto oo kale buu yidhi ayaa dhiman haya buu yidhi si aanu xaq ugu yeelano inaanu doodno oo si sax aanu si nabad ah u doodno. And when it's over, it is over. It marka doodu dhamaato oo qolo macnaha ay badiso way dhamaatay buu way dhamaatay. is over. The final thing, Joe Biden. I've traveled the world with Joe. ugu dambeyntii waxaan dhahayaa buu Joe Biden buu yidhi adduunka ayaan iskula soo wareegnay buu. I hoped he lost. I prayed. waxaan rajaynayay buu inuusan ku guuleysanin. aad waan u ducaynayay buu inuusan guuleysanin. He would lose. He won. laakiinse wuu ku guuleystay. He's the legitimate president of the United States. madaxweynaha saxda ah ee Mareykanka weeye maanta. I cannot convince people, certain groups, by my words, but I will tell you by my actions. dadka qaarkood buu yidhi afkayga kuma qancin kara buu laakiinse waxaan ku qancinayaa buu ficilkayga. That maybe I, above all others in this body, need to say this. waxaa laga maarmaan ah buu yidhi dad kaloo dhan markii la iska daaya aniga iyo kuwa ila midka ah inaanu hadalkan nidhaahno. Joe Biden and Kamala Harris are lawfully elected and will become the president and the vice president of the United States. waxay tahay buu taasi Joe Biden iyo Kamala Harris ayaa waxaa sharci ah loogu doortay buu yidhi madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeenka oo noqon haya buu yidhi madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka. On January the 20th. 20 January ayay noqon doonaa waa maalinka la dhaarin doono ee uu maxkamadda sare ay dhaarin doonto. Resume Now is America's top resume builder and is now free to start. Just click this video. Get your job 2 times faster. I want to go to the Senate floor right now. Lindsey Graham, who has been perhaps the most stalwart supporter of the president.